xaruntan cusub ee uu maanta wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya uu dhagax dhigay ayaa ahayd dhismo hore oo ay ciidamada boolisku lahaayeen waxaana dhisaya dowladda Turkiga oo ayagu tababar siiya ciidamada haramcad ee sida gaarka u tababaran iyadoo wasiirka ay weheliyeen safiirka dowladda Turkiga Soomaaliya u fadhiya taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo taliyaha ciidamada sida gaarka u tababaran ee Turkiga oo maanta magaalada Muqdisho soo gaaray taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Generaal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa sheegay in xaruntan iyo saldhigyo kale oo dib u dhisyo lagu sameeyay lagu soo beegay sanad guurada booliska ee 76aad waxaa sharafno ah hadaan ciidanka booliska Soomaaliyeed inaanu maanta dhowr mashaariic horena soo furnay kuwa cusubna aanu dhagax dhigi doona inaad nagala soo qayb gashaan xaruntani waa xarunta aan ugu talagalay ciidanka gurmadka degdega muxuu ahaa xarun cusub inaan uga dhisno annagoo iska kaashanayna xuduudeena iyo muxuu ahaa awoodeena iyo international community wixii naga caawin kara taliyaha ciidamada sida gaarka u tababaran ee booliska Turkiga Salemet Turker oo asagu Muqdisho maanta soo gaaray ayaa sheegay socdaalkiisa inuu la xiriiray ka soo qaybgalka xuska asaaska booliska Soomaaliyeed ee 20 December oo uu taliyuhu ku casuumay Sayın Bakanıma ve Emniyet Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Ambassador Mohammed Yilmaz safiirka Turkiga ee Soomaaliya ayaa sheegay ciidamada haramcad xaruntan cusub ee Turkiga u dhisayo inay qayb ka tahay xiriirka wada shaqeyneed ee labada dawladood ee iskaashiga amniga la xiriira. Bugün burada bu eğitim veren Türkiye'den birimizin Sayın Başkanımız burada. Öncelikle hoş geldiniz diyorum Somali. wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa xusay in ciidankan haramcad ay yihiin ciidamo leh tayo tababarkeedu uu sareeyo dowladda Turkiga ayuuna uga mahad celiyay waa maalin taariikh ah xaqiiqdii in mudaan raadineen inaan xarun ee gaar u leeyahay u sameeyay ciidamada aadka u tababaran oo tababar gaarka qaba oo lagu magacaabo ciidamada booliska ka tirsan oo magacoodu yahay haramcad wasiirka ayaa sidoo kale hambalyo ku aadan munaasabada 20 December u diray ciidanka booliska Soomaaliyeed oo u dabaaldegaya 76 guuradii ka soo wareegatay markii la aasaasay waxaan rabaa xaqiiqda inaan halkaan hambalyo ugu dirano ka faa'iideysanayo maanta ee tahay 19 December oo berito 20kan ay ku aadan tahay sanad guuradii ciidamada booliska Soomaaliyeed marka waxaan leeyahay ciidamada ugu horeeyo taliyaha booliska Soomaaliyeed iyo sareeyaasha saraakiil xigeenada iyo ciidamada qofka ugu hooseeyo dableyda iyo qoysaskooda waxaan leeyahay hambalyo sanadkan sanadkiisna caafimaad barwaaqo Ilaahay lagu gaarsiiyo dib u dhisyo xarumo boolis lagu sameeyay iyo xarumo cusub oo ciidamada loo hirgeliyay ayaa ku soo aadaya xuska sanad guuradii 76aad ee ka soo wareegatay aasaaskii 20 December 1943 ee ciidanka booliska Soomaaliyeed oo la filayo in munaasabado waaweyn oo loogu dabaaldegayo dalka laga dhigo Sugaal Macalin Maxamuud warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.